muqdishaan dhinacna u dhaafaynin waa kala soo maalgeliyey oo kow ka ah cadowga loo adeegsaday in Somaliland gudaheeda uu kaga dhaadhicinayay Somaliland marka la tiriyay dadkii daawaday 60 milyan oo caalamka tiradoodu gaadhayso ayay ahaayeen wuxuu ka qayb galay shirkii weynaa dhawaan caalamku oo lagu marti qaaday oo codka Somaliland laga dhageystay ka dhacay waddanka Switzerland iyadoo waxaa soo horumari jiraan markaynu ictiraafka helay waxaanu yeelanay cadow badan oo dawlado waaweyn oo ka gadooday ictiraafka ay raadinaysay Somaliland in ay ka hor yimaadaan xukuumadda golaha wakiiladu sharci bay ka soo saareen in ictiraafka Somaliland la isbarbar taago lama taabtaana ay tahay cid alaale cidii faragelisa waxaan maanta idinka socodsiinaya cadow badan oo aynu leenahay wadamo badanahi in faragelin badankeena ay soo geliyeen ciidamada amnigu iyagoo mahadsan waxay qabteen shabakad la soo adeegsaday dad ka mid ah Somaliland oo la soo maalgeliyey oo wadamo shisheeyihii ka dambeeya kow waxa ugu horeeya xasan sheekh maamula muqdishaan dhinacna u dhaafaynin waa kala soo maalgeliyey oo kow ka ah cadowga loo adeegsaday in Somaliland gudaheeda khalka lagu abuuro waxa la abuuray shabakad dacafo ah oo Somaliland ka soo jeeda oo la adeegsanay alxamdulilaahi rabbil caalamiin shabakada ciidamada amnigu gacanta ayay ku dhigeen wax way xidhayin wax baaritaan baa ku socda waxna waa la daba socda waxa la marinayaa sharciga Somaliland u yaala oo ah kii ay golaha wakiiladu baaskareeyeen golaha wasiiradu baaskareeyeen madaxweynuhuna saxeexay waxaan sharci darro ah cidna lagu xukumi maayo dadka reer Somaliland waxaan leenahay waxa ammaan mudan ciidamada amniga kama nabad galayo nin kasta oo qaranimadiisa iyo dadnimadiisa iyo caruurtiisa iyo ubadkiisa gambooyin siisanaya waxa aan leenahay waxa jira dad ku soo gabanaya ambashaad diinad ha gasado ambashaad qabiile ha gasado ambashaad mucaarid xisbiga iska dhigayo waxa waa la socdaa loona dul qaadan maayo waxaan shacbiga iyo warbaahintiinaba ku dhiirinaya dadkaasi badna way xidhan sanadii sheegay badna baaritaan bay ku jiraan badna waa la daba socdaa shabakadaasi waa shabakad cadowgu u soo maleegay oo ay Soomaaliya ka dambayso oo ogtiin xasan sheekh oo intii Soomaaliya hadhay maamul kari waayay inuu maanta Somaliland oo hore u socotay oo ictiraafkeedu socday oo ogtihiin 25 qof ugu horeeyay in Israa'iil loo diray aqoon isweydaarsi iyo aqoon ka soo korsadaan ka socdo wasaaradda biyaha maanta iyadoo ictiraafka yaalla miiska Somaliland gorgortan laga geli maayo qofna laga bari maayo sharciga la waafajinaya inuu noqdo oo lagu ilaaliyo waa wax xukuumad loo doortay qarannimada Soomaaliland waa laba taabtaan ictiraafkuna waa laba taabtaan waxa kale hadday dhaliil tahay hadday cabaarayntii oo isla naqaana wax dhibaato ma laha marka waxaan leenahay shacbiga Somaliland iyo warbaahinta si dhow baanu idin la socodsiinaynaa xaaladda amniga halka ay marinayaan